number 4 nin lacag leeyahay inta soo magacayga ayam bes way magacaaga Faisal Omar magacayga leeyahay way Faisalow qofka nolosha la wadaagaysa maxaad ku dooranaysaa qofka nolosha la wadaagayso horta nolosha wax ka fiican ma jiraan marka hore kawdi wax la wadaagi karana ma haba wax kala keena waayo qof mad guursan nolosha aan la wadaagin qofka dandabanadaadiyo dhehaaga daawado wayga daanyar hado bis way inan wanaagsan oo duna oo xariira ayaa ka qaalisan oo aan dooran lahaano maanta dadweynaha waxaan weydiin doonaa su'aal muhiim ah bal su'aasha waxaan eegi doonaa qof walba ra'yigiisa iyo fikirkiisa soo dhawaadeero magacaaga waa soo dhawaay magacayga waxa la yiraahdaa Ibrahim Yusuf qofka aad nolosha la wadaagaysid maxaad ku dooran lahayd qofka aan nolosha la wanaagsan waxaan ku dooranayaa akhlaaqdiisa horta marka hore akhlaaqdiisa wanaagiisa inuu dad la socod leeyahay inuu qof wanaagsan yahay inuu dadka xiriirin karo inuu maaragtay go'aan leeyahay oo go'aan leeyahay عسيمة واحدة يراو وأنا وحن رالي أهكاهاي وأنا وجعلهاي أما دتك وجعليهاي أما بني آدم وجعليهاي أيها وناكسن سورو مقعاga magacaygu waa Suldaan Maxamed qofka nolosha la wadaagaysid maxaad ku dooran lahayd qof waxaan ku dooran lahaa walaal dhaqankiisa iyo diintiisa qofna deeskama doorto qof aan ku kalsoonayn garaas marka waxaan ku dooran lahaa dhaqankiisa iyo diintiisa sax intaas ku dooran lahayd aad baad maasantay soo dhawaal magacaaga waa Xuseen Maxamed Xuseen waana dhaw maasantay waxa weey su'aashaasi qofka nolosha la wadaagaysid mustaqbalka maxaad ku dooran lahayd qof waxaan ku dooran lahaa horta kow dhaqan laba dabeecad mar labaad maxaad saddexaad waxa weeye inay qof fiska dhameystiran oo aqli ahaan iyo dabeecad ahaan iyo jamaal ayaan ku dooran lahaa iyo qurux sax nigaa sallallahu alayhi wasallam gabadha waxa lagu guursadaa maalkeeda sax jamaalkeeda marka inta aan sheegay qurux dabeecad dhaqan wanaag iyo diin inay inta leedahay ayaan ku guursan lahaa aad baa maasantay shukran soo dhaw walaal magacaaga wandhaway walaal magacaygu waa Istaam Khadar qofka nolosha la wadaagaysid mustaqbalka maxaad ku dooran lahayd yaanu saddex qodob baan ku dooran lahaa sax qodobka koobaad horta waa diinteena weey gabadhu inay diin leedahay qodobka labaadna waxa weeye quruxdeeda iyo intii uu nabigu noo sheegay maalkeeda intaasad ku dooran lahayd adigu qodob baan ku dooran lahaa sax aad baa maasantay Bismillahir Rahmaanir Rahiim Ahmed Maxamuud Ahmed ayaa aniga leeyahay gobolka Togdheer oo ka soo jeeda adigu shakhsi ahaantaada maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagaysid horta marka ugu horeysa waa inuu dabeecad wacan ay dabeecadiisu ku qanciso inuu dad wanaagsan ka soo jeedo inuu diinta oo asalkiisu diinta ku salaysan yahay qof diinta haysta diin leeyahay waxa weeyaan wax fara badan baa qofka bini'aadmiga marka labada qof sheekaysanayaan ay isla fahmayaan ama qof waliba aragtidiisa uu ka dhaxarkaya marka kulay horta waxa weeyaan inuu qofka horta duntiisu wacan tahay oo dun wacan yahay qof oo duntiisu xariir u dhalatay ma garanaysa waxa weeyaan diinna inuu haysto oo qof diinta ku sugan yahay oo diintana waa teen ku dhalanay waa teen lagu dhalay waa teen wax ku dhalayno alxamdulilaahi rabbil caalamiin soo dhawaal wandhaway walaalo magacaaga asma qofka nolosha la wadaagaysid maxaad ku dooran lahayd horta number 1 qof diinna waan dooran lahaa number 2 bulshada maqaamka ku leeyahay iyo meeshu ka jooga bulshada taana ku dooran lahaa number 3 qofku daacad yahay number 4 nin lacag leeyahay intaas horta wax loo dhigaa ma jiro adaan walaalo soo dhawaal magacaaga ayam bes anigu bes magacaaga ku magac dheer iyo xamsi maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagaysid waxaan ku dooran lahaa inuu saddex ku dooran lahaa inuu iimayl leeyahay walaadsiman garanayo wanaagga garanayo hadalka wanaagsan uu yaqaano intaasaan ku dooranaya soo dhawo sheekh magacaaga cabdirashiid xarsi maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagaysid rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri gabadha waxa lagu guursadaa afar lijamaaliha wali hasabiha wali maaliha
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاظفر بذات الدين ديما كدر الله انت سكوا حشخ aad ma san shukran sodowal magacaaga saaxiib liibaan baa la dhahaa qofka nolosha la wadaagsan maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagayo horta marka hore aqligaygan ku dooran lahaa mar labaadka dabeecadiisa iyo nidaamkiisa iyo dee wuxuu yahay oo dhan markaan ogaado markaan baan dooran lahaa maasanta shukran sodowal waan dhaway walaal magacaaga Dinaasir Cabdullaahi Maxamed maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagsan walaal waxaan ku dooran lahaa qurux iyo diin iyo asluub iyo dhaqan yaa ku dooran lahaa qofkan la wadaagayo mustaqbalka waka ayo maasanta waa dhawahay magacaaga Faysal Omar waa magacayga la yiraahdaa waay Faysalow qofka nolosha la wadaagsan maxaad ku dooranaysaa qofka nolosha la wadaagayso horta nolosha wax ka fiican ma jiraan marka hore kawdi wax la wadaagi karana ma haba wax kala keena waayo qof mad guursan noloshaana la wadaagin qofka nolosha la wadaagayso soo hore la soo wadaagtay ma yadaan hore la soo wadaagtay sax maxaad ku dooratay laakiin qofka nolosha la wadaagaysa waa qofka jacaylkaaga una sax qofka jacaylka maxaad imika mid bad guursatay sama ya may saddex baan guursaday saddex maxaad ku dooratay waxaan ku doortay deele waxay jacayl leeyahay cidlaan ka ooyay cidlaan ka heesay cidlaan ka gabiyay wax walo kastaba waan sameeyay gaar dibiriga waxaa idhi عدايي داراران كقسلاي دوشو حتى دبان داديو دهاجا داودو وايغا دمانتي إناني اسكالوفنيو إناني اسكتينو تبدا أناني بورا دمانتو عرف كيس قالان عرف كيس لقالان الكوة عقار نقضو إن كنا افتيني عشقي اسكو عبورني ويلتي سودوال وندوه magacaaga nimcooy qofka nolosha la wadaagsan maxaad ku dooran lahayd wallahi horta waxyaabo badan oo ka mid tahay horta qofku inuu noqdo yacni qof daacada koow inuu noqdo qof wax fahmaya deeyo yacni update ah talabaadna inuu noqdo qof yacni lacag leh daanyeer uu noqonayaa aba qofka dil lacag leeyahay daanyeernimo kama maxaad kala ku dooran lahayd والله أنت أصلاً إنه العقد شو دانير هذا بس واي أدم أحسنتني معك أيوة والله سودوال وندوه هاي والله magacaaga أحمد ناصر إيه كي بالله والله صح واي أحمد ناصر maxaad ku dooran lahayd qofka nolosha la wadaagsan hal shay baan ku dooran lahaa halkaas shay wax weeyaan dumarka oo way wada qurux badan yihiin laakiin waxaan kaga doorbidi lahaa gabadhan dooran in dabeecadda iyo inay dun tahay gabadhu wanaagsan haddii gabadhu qurux badan tahay waxa laga yaabaa mid ka sii qurux badan inaan helo laakiin inan wanaagsan oo duna oo xariira ayaa ka qaalisan oo aan dooran lahaa aad ma sanad shukran